dadkii ku noolaa magaalo yar oo ku taala koonfurta bari ee dalka Jamaica waxa ay ahaayeen kuwo ku nool nolol heerkeedu aad u sareeyo ilaa markii dambe caalamka oo idil dadka jooga ay jeclaysteen in halkaasi ay dalxiis u aadaan. magaaladu waxa ay lahayd baarar sidoo kalena kalaabyo waaweyn oo habeenkii oo idil furan maalin iyo habeenna dadka uma aynan kala ahayn oo raaxadu adduunyada waa ay wadeen. dhalinyaradu waxa ay ahaayeen kuwa aad u caba qamriga sidoo kaleetana zinada ayaa magaalada ku badnayd. lacagtu waxa ay ahayd mid qoys walba oo ka mid ah dadka ku nool magaaladaasi ay jeebabkooda ku jirto. dhaqaalaha magaalada inta ugu badan waxa uu ka soo geli jiray maraakiibta ay ka soo qafaalan jireen badda Kariibiyanka. dhammaan dhaqaalaha dadka ku nool magaaladaasi waxa ay ahaayeen kuwa aad u malayso si siman in lagu qaybiyey, balse halka dhibka ah oo yaalla ayaa waxa ay ahayd magaaladu ma aysan lahayn wax alla ka cabsiina ah. heer waxa ay gaartay dhammaan wadamada Yurub iyo sidoo kaleeta Latin America looga soo haajiro oo loo yimaado in lagu raaxaysto. tobaneeyo sano oo balaayiin dollar ay ka qaadanayeen maraakiibta isaga kala goosha badda Kariibiyanka ayaa dadkii magaalada waxa ay noqdeen kuwa inta badan aanan u baahnayn inay bannaanka sii aadaan. magaalada waxaa la sheegay inay lahaan jirtay wax walba oo caalamka looga baahan yahay in lagu noolaado. heer xitaa waxa ay gaartay magaalada agagaarkeeda beeraha ku yaala lagu beero ubaxyo, taasi oo noqotay isha ugu muhiimsan ee u soo jiiday inay dalxiisayaal fara badan soo booqdaan magaaladaasi. dadku waxa ay ahaayeen kuwa aanan lacagta ka fikirin laakiin kaliya ka fikira waqtiga inuu ka dhamaado. laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ku dhacay caradii Ilaah, kadibna dadkii dhammaantood waxa ay noqdeen kuwa ka shallaayo waxyaabihii ay hore u sii wadi jireen. daawade haddii aad ka hesho muuqaalada noocan oo kale ah like saar si aan u soo badino. Royal Boat waxa ay markii hore ku bilaabatay tuulo yar oo ku taalay koonfurta bari ee dalka Jamaica, waxaana la aasaasay sanadu markay ahayd 1494 ayada oo ay aasaaseen dawladda Spain. laakiin tobaneeyo sano oo ay lacag dhaqaale fara badan ee magaalada soo galeen ayaa waxa ay noqotay magaalada ugu weyn ee Kariibiyanka ee waqtigaasi shaqaynaysay, ayadoo sidoo kale xarun dhexe u noqotay dhammaan ganacsiga oo ay ahayd isha kaliya ee ay ku soo xirtaan maraakiibta ganacsiga ee isaga kala goosha Kariibiyanka. qarnigii 17aad magaaladu waxa ay noqotay midda kaliya ee qof walba uu ku haminayo in uu soo booqdo. waxa magaalada u soo haajiray boqolaal dadka Ingiriiska ah iyo Isbaanishka ah kuwaasi oo shaqo u soo raadsaday magaalada si noloshoodu ay wax ugu bedelaan, halka magaalada dadka ku noolaana dhammaan ay noqdeen kuwa aanan shaqo rabin heerka taajirnimada ay ka gaareen. magaaladu waxa ay lahayd goobo waaweyn oo habeenkii lagu caweeyo. isha kale ee ugu weyn ee magaaladu uu dhaqaalaha ka soo galo waxa ay ahayd rag is-abaabulay oo u qaabaysnaa qaabka burcadbadeeda ahaana kuwa maamula dhammaan gaadiidka isaga kala goosha Kariibiyanka. dhaqaalaha halkaasi ka soo galaya magaalada waxa ay ka dhigtay mid wax walba oo dhex yaalla ay noqdaan kuwa qaali ah. sidoo kale nolosha dadka ku nool halkaasi ma aynan lahayn dabaqad kala sarreysa ama hooseysa. dadku waxay ahaayeen kuwa ku wada nool nolol isla wada eg walow ay jireen dad dhaqaalaha gacanta ku hayay. sidoo kaleete haweenka jirkooda ka ganacsada ayaa magaaladani u soo shaqo tago ayagoo balaayiin dollar oo lacaga ah ka soo xarayn jiray dhaqaalaha ay ka helaan magaaladaasi. qamrada ayaa waxa ay ka ahayd shayga sida shaah looga caba ee qof walba ee aad u tagto magaaladaasi uu kugu soo dhaweyn jiray. dhismayaasha magaalada waxa ay ahaayeen kuwa ugu fiican ee qarnigaasi 17aad ee soo maray caalamka. waxa ay ahayd magaaladu mid dhismaha ka dambeeya la sii qabsato ayagoo aanan ka fikiraynin dhaqaalaha ku baxaya. sida ay sheegeen khubarada wax ka qoray magaaladaasi, heerkulka magaalada ayaa waxa uu ahaa mid u wanaagsan jawi walba, ayadoo heerkulka ugu sarreeya uu ahaa 25, midka ugu hooseeyana uu ahaa ilaa 16. heerkaasi oo ah heerka bini'aadanka ay jecel yihiin inay ku noolaadaan. magaalada sidoo kaleeta dadka inta badan ay ugu magac dareen jannadii adduunka, halka qaar kalena ay ugu magac dareen magaaladii ugu sharta badnayd ee adduunka. maalinta ka sii dambaysa dadka magaaladu waa ay ku soo badanayeen. sidoo kalena raaxada waxa ay ahayd mid isdaba joog ah oo xitaa dadku ay iloobeen in adduunka uu imtixaan ka jiro. magaaladu ma aynan aqoonin wax la yidhaahdo baahi, ayadoo weliba qaaradaha adduunka ay ahayd mid laga wada yaqaano maamulkeeda. gabdhaha waxa ay ahaayeen kuwa ku fikira in ay guursadaan dadka hantiilayaasha ah ee xukuma magaalada, ayadoo sidoo kaleetana ragga ay ku tartami jireen in midba midka uu ka awood badan yahay uu ka shaqo bato, weliba uu noqdo midka xukuma
badda Kariibiyaanka. Dowladda ayaa waxa ay ku tashan jireen oo weliba ay ku xisaabtami jireen inay kireystaan dadka magaaladaasi ku nool oo ay u kireystaan inay dhacaan oo ay weliba baabi'iyaan cadawgooda. Magaaladu waxa ay lahayd albaabo waaweyn oo laga soo galo kuwaasi oo ay dadka qaar u aaminsanaayeen inay ahayd albaabadii jannada. Sidoo kalena waxa ay ahayd halka kaliya ee qof marka uu yimaado uusan damcaynin inuu dib uga laabto. Magaalada waxaa aad ugu badnaa fisqiga, sidoo kaleetana waxaa aad ugu soo batay dadka aanan xeraga ku dhalanin ee loo yaqaan garacyada, ayadoo weliba gabdhaha ay ahaayeen kuwa iska uuraysta aanna ka fikirin waxa ay siin doonaan carruurtooda, waayo magaalada ayaa waxa ay ahayd qof walba oo jooga mid hela dhaqaale aanan lagu xisaabtami karin in qof bini'aadan uu helo. 10 sano oo raaxadaasi lagu jiray ayaa maalin maalmaha ka mid ah hal mar albaabada la isugu dhuftay magaaladii oo idil, waxaana ku dhacay musiibo isaga kala dambaysay, taasi oo ka dhigtay magaalada mid laga sheekeeyo oo jiritaankeedii uu halkaasi ku ekaaday. Magaalada oo dadka ku nool ay gaarayeen ilaa 65,000 oo qof, sidoo kaleetana ahayd mid haysa dhaqaalaha ugu badan, ayaa subaxyaha ka mid waxa uu ku soo habsaday musiibo xag alla ka imaaday. subaxnimadii bishii Juun 7 1692 ayaa dhulgariir aanan la filanaynin uu hal mar magaalada afarteeda gees ka qayliyay. dadkii waxa ay noqdeen kuwa baabaa iyo sidoo kaleeto kuwa aanan garanaynin halkay u cararayaan. badda ayaa ku soo fatahday dhammaan dhulkii oo dhanna waxa uu isu bedelay meel biyo ay fadhiyaan. gurihii waxa ay noqdeen kuwa dumo iyo sidoo kaleeto kuwa biyo ay harqiyeen. dadkii magaalada markii musiibadaasi ay ka dhacday kadib tagay waxa ay sheegeen in meydadku ay ahaayeen kuwa dul sabeeya biyaha magaalada, sidoo kaleetana guryaha dhammaan ay noqdeen wax duma iyo wax dhulka gala. mid ka mid ah dadkii sida dirqiga leh uga fakaday musiibadaasi ayaa waxa uu sheegay taariikhyahanada saacadu marka ay ahayd 11:43 barqanimo in dhulka oo dhan uu wada noqday mid gariiraya oo afarta geesba aad u malaysa in la ruuxaya. waxa uu yiri gurihii waa ay dumeen, badina waxa ay noqotay mid ka sara martay dhammaan gurihii ugu dhadheeraa ee magaaladu ay lahayd. sidoo kale maraakiibtii ku xirnaa badda ayaa iyagana waxa ay noqdeen kuwa banaanka wada yimaaday kadib markii duufaantii ka dhacaysay halkaasi ay soo qaraacday. dadka magaalada ayaa waxa la sheegay intii ka badbaaday inay gaarayeen dhowr boqol oo qof, halka dhammaan inta kalena ay dhimatay. waa laga kala cararay waxaana laga maqnaa qarniyaal. dib ayayna magaaladii mar labaad la isugu dayay in la dhiso. sanadii 1800 ayaa waxaa yimid dad khubaro ah waxaayna dib u yagleeleen magaaladii, ayadoo haddana dib u bilowday ganacsigeedii iyo barwaaqadii lagu yaqaanay. waxa ay noqotay haddana mar labaad goob fisqi ah oo dhammaan dadka raaxada doonaya ay isugu yimaadaan. sidoo kale dadka taajiriinta ah ayaa magaalada waxay u soo aadi jireen hawa bedelasho. markan magaalada qaybaheedii kala duwanaa aad ayay u sii ballaarteen, waxaana la geeyay dhul markii hore aysan gaarin, ayadoo weliba ganacsiguna uu noqday mid kii hore ka sii badan. dowladaha Ingiriiska iyo Isbaanishka ayaa waxay ahaayeen kuwa iyagana ku tartama xukunka magaaladaasi, walow magaalada si dhab ah ay u xukumayeen maamulkii Isbaanishka. laakiin hal qarni kadib waxaa magaalada haddana ku habsaday musiibo kaleete oo ahaa dhulgariir iyo duufaan mar labaad ku dhufatay. dadkii magaalada waxa ay noqdeen markani kuwa ay harqiyeen biyihii ay soo tuftay badda, sidoo kaleetana gurihii ay ku dumeen wixii ka badbaaday biyahaasi. magaaladii waxa ay noqotay goob qabuuro ah oo mar dambe dib aanan loo furin, ayadoo sidoo kaleete dhammaan geesaheedii dhismaha ku yaalay laga wada kala cararay. hal qarni kadib 20kii bishii Janaayo dowladda dalka Jamaica ayaa waxa ay dib u shaacisay xaafadda Port Royal oo hadda ka mid noqotay caasimadda dalka Jamaica in dib loo furayo, ayadoo sidoo kale xaafaddaasi lagu xasuustay inay ahayd magaaladii biyaha ay harqiyeen oo noqotay mid taariikhyahanadu sheeko kaliya ay dadka ugu sheekeeyaan oo wax dambe oo ku nool aysan jirin. laakiin magaalada riyadeeda waxa ay dib u soo laabatay markii markab 2,000 oo ruux wada uu ku soo xirtay. markabkan oo la dhahayay Marella Discovery 2 ayaa waxa uu keenay dad dalxiisayaal ah oo magaalada u yimaaday inay u soo damaashaad tagaan. waxa ayna noqotay magaaladu markani mid rajadeedu ay kor u sarreyso, walow ilaa hadda aanan la garanaynin musiibadii saddexaad inay ku soo aadi doonto iyo in kale. wadamada jaarka la ah wadanka Jamaica ayaa inta badan waxa ay walaac ka muujinayaan mar saddexaad haddii ay musiibo ka dhacdo magaaladaasi inay noqonayso mid maashayn doonto dhammaan magaalooyinka ayada ku teedsan. balse khubaro sheeko ka qortay magaalada ayaa waxa ay sheegtay in magaaladu ay nasiib u leedahay inay dib u kabasho samayso mar walba oo ay khasaare soo gaarto, haddana dadkeedu aysan ahayn kuwa ku cibro qaata
waxyaabaha ku dhacaya magaaladaasi. sidoo kale mar haddii ay badato carada ilaah waxaa dhaca mar walba musiibooyin aanan la isaga harayn oo xitaa aanan lagula sugaynin inaad qiyaamo tagto. daawadayaal intaa waxaynu ku soo koobaynaa sheekadii koobnayd ee aynu uga hadlaynay Port Royal oo ka mid ah waddanka Jamaica marna ahaan jirtay magaalada caalamka laga jamto in la booqdana la jeclaa. tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale waa anigoo inkaga tagaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.